مدن حسن خيره iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasiirada deeqa iyo qaarka wasiir dawladeena wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo wasiir ku xigeenka iyo agaasimayaasha waaxyaha xogayaha joogtada iyo dhammaan jaamacadaha dalka daladaha waxbarashada iyo bahda saxaafadda waxaan idinku soo dhaweynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan anagoo waqtigu nagu yar yahay dartiisa waxaan rabnaa kelmadaha inaan soo gaagaabino marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka yatafadal wasiir ra'iisul wasaare shaqaalaha wasaaradda waxaa sharaf weyn maanta ii ah inaan idin kala soo qayb galo furitaanka wasaaradda inaad ku soo laabataan wasiir waa kaaga mahad celinaynaa waan aragnay shaqadii weyneed aad ka qabatay taasna waxay muujinaysaa in ma aragtay horumar aan ku sii soconno ayna mar walba wasaarad kasta ay goobaheedii shaqo ku laabanayso insha Allah marka waxaan ku rajeynaa guul wasiir aad u mahadsantahay waxaan markan kelmadda siinaynaa wasiirka arrimaha gudaha badan oo lagu daahfurayo aqalka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare aan maanta ka soo qayb galo ra'iisul wasaaruhu nagu hogaaminayo waa muuqaal aad u wanaagsan waxay calaamad ka tahay in magaaladu ay soo degayso xaruntan hadda ka hor baa wasaaraddu deganayd in magaaladu soo degayso kalsoonidii soo noqonayso bay aad calaamad uga tahay waana arrin lagu farxo wasaaradda waxbarashadana hadda waxay haystaa space ay ama meel ay balaaran oo ay si fiican uga hawlgasho oo dadku ku soo gaari karo magaalada bartamaheedii taas ruuxeedu waa calaamad aad u wanaagsan waxaan u rajaynaynaa shaqo wanaagsan waana maalin farxadeed soo dhawaada dhamaantii waa mahadsantii aad u mahadsan wasiirka waxaan markaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare mudane ra'iisul wasaare mudanayaasha golaha wasiirada ka tirsan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka aadaan uga faraxsanahay inaad maanta nagala soo qayb gasheen xafladan aan ku daahfurayna aan dib ugu howlgelinayno xaruntii wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare tani waa tallaabo weyn mudane ra'iisul wasaare waxaan ballan ku qaadnay maalintii xilkana loo dhiibay 100 maalmood gudahood inaan waxbarashada aan dib u soo habeeno aan ka bilaawno inaan soo celino xaruntii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare 100 maalmood waxay nala dhaftay muddo yar laakiin waxa wali aan ku taaganahay in arintani ay arrin muhiim ah tan waxay kamid tahay talaabooyinka waaweyn oo aan rabno dalkan waxbarashadiisa inaan ku soo qaan wax uga qaban kow si aan waxbarashada hiigsigii aan degsanay aan u gaarnay oo muhiimadda ugu weyn aan rabno dalkan waxbarashadiisa inaan uga qabano kow inaan abuurno waxbarasho si sahlan loo heli karo labo inaan abuurno waxbarasho tayo leh taasi aan u helno waxa loo baahan yahay meel lagu shaqeeyo xaruntani marka waa muhiim markaan xaruntan sameeyno waxa loo baahan yahay in siyaasadihii iyo shuruucdii hagi lahaa waxbarashada ayadana aan abuurno taasi shaqo weyn aan ka qabanay waad ogtahay in manhajkii midaasnaa ee qaranka aan daah furnay bishii June oo talaabo weyn keentay oo aan isleenahay manhajkani wuxuu hadda gunta u dhigay in Soomaalida ay hesho mustaqbalka social cohesion wax la yiraahdo wadajir bulsho in ma arkaysa uu manhajkan uu gundhig u noqon doono siyaasadii waxbarashada tii guud iyo tii tacliinta sareba hadda waan gudbinay golaha wasiirada waxaan u geynaynaa golaha baarlamaanka idan waxaan rajaynaynaa in meel fiican la marsiyo waad ogtahay mudane ra'iisul wasaare iyo wasiirada kale iyo dadweynaha baan u sheegayaa imtixaankii
midaysnaa qaranka dugsiga sare waxaan qaadnay sanadkii saddexaad sanadkaana wuxuu uga duwanaa sanadadii hore waa sanadkii ugu horeeyay oo ugu tirada badnaa arday Soomaaliyeed ee gasho 26 sano gudahood waxaan rajaynaynaa sanadka soo socota oo shaqadiisa hadda aan bilownay in aan keeno wax ma arkaysa dhaxalgal ah oo taas ka sii daran oo sistamadiisa aan hagaajino wasaaraddan waxay naga caawinaysaa marka in aan shaqadeena si wanaagsan aan u qabsano maanta waxaan isleeyahay waxa bilowday marka arintii cusbeed oo ah in shaqada dadku ay qabsadaan la yimaado xilli muayyan ah la baxo xilli muayyan ah inta la joogo ma arkaysa hawl ay dadku qabtaan oo aysan noqonin wax ma arkaysa meeshii la iska joogo waajibaadka ay leeyihiin shaqaalaha oo inta badan aan ku celcelinay inay noo keenaan waxaan rabnaa anagana xuquuqdoodii aan ka bilaabayno inaan siino space inaan siino xarun oo ma arkaysa nabadgelyo ku shaqeeyaan aan ka filayno in ma arkaysa ay wax soo saaraan waxay la tahay tan waa waxyaabaha aan rabno waxbarashada in aan hore u sii kaxayno waad ogtahay mudan ra'iisul wasaare xarunta ma noqonaysa tii ugu horeyso aan dib u soo ceshano jaamacadda ummadda qaybteeda ma arkaysa Gaheer waxaan la soo wareegnay 13 bishii Juulaay talaabo weyn ay noqotay dadka Soomaaliyeed ku farxeen maanta halkan aan joognaa waxaan anaga ballan ku qaadnay aan keenayna hadii Ilaahay yiraahdo xarumihii wasaaradda waxbarashada ee laheedo idil xafiiskii manahijta xafiiskii imtixaanaadka xarumihii kale ma arkaysa oo ma kaliya ma aha xamar laakiin meel walba xarunta ay waxbarashada ay ku laheeday meelii wax loo khidmay jiray inaan soo celinaa naga go'an waxaan ka rabnaa ma arkaysa idinkana dadweynaha Soomaalida iyo xukuumadda inay arintaas nagu taageeraan waxaad ogtihiin in dawladda ay kor u soo kacayso dadweynaha waxaan ka rabnaa kalsooni waad ogtihiin tuhun iyo shaki in laga muujiyay sida loo maamulo waxbarashada deeqaha dibadda nooga timaado taas anagoo ka duulayno isbeddelka cusub isla xisaabtanka oo hormuudka ka yahay ra'iisul wasaaraha oo la rabo in wax walba ay noqdaan wax cad waxaan maalin dhaweeto aan midabada u aasay guddi maamuli doono deeqaha dibadda nooga yimaada caruurteena la siiyo kaasoo ka kooban xubno ka socda baarlamaanka qaar ka socda aqalka sare xubno ka socda civil society dad ma arkaysa aad muhiim ugu ah bulshada dhexdeeda oo wasaaraddana ay ayadana qayb ka tahay laakiin wasaaradda ay hogaaminayso taas waxaan rajaynaynaa inay keenayso dadka Soomaalida inay kalsooni helaan waxaan xaqiijinaynaa mar dambe in aysan dhicin haddii tuhunkaasi uu jiri jiray maanta kadib inuusan jiraynin oo dadka Soomaalida si cadaalad ah wixii loogu soo dhiibo anaga nalagu aamino aan rabno in ma arkaysa aan si fiican meel u marsin ra'iisul wasaare waqtigaada uu yaryahay waan ogahay soo dhawow waxaan rabaa in ma arkaysa halkan aad kelimadii dardaaranka aad ugu siiso bismillaahir rahmaanir rahiim wasiir waa mahadsantahay wasiirada kale oo ka soo qayb galay xafladda daahfurka wasaaradda waxbarashadana aad ay u mahadsan yihiin marka hore waxaan idinkugu hambaleynayaa haddii aad tihiin wasaaradda waxbarashada shaqaalaheeda inaad wasaaraddii ku furteen idinkoo adeegsaday idinka xooggiinna xoolo shacabka Soomaaliyeed aad ka soo aruuriseen waqtigiina aad ka goyseen iyo idinkoo gartay inaad idinku isku tashataan inaad taas wasaaradda ku furteen horta waa tallaabo cusub oo dawladnimada Soomaaliyeed ay hore u qaaday waa idinkugu hambaleynayaa marka hore waxaan rajaynayaa marka taasna inay wasiirada kale oo halkan jooga iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha iyo cid walba inaan ku daysanno oo ay tusaale noo ahaato haddii sartan wasaaraddii waxbarashada ahayd aan intaan dib u dhisnay shaqaalihii wasaaradda isugu yimaadeen wasiirku uu fadhiyo wasiiradii kale oo xukuumadda ay halkan joogaan macnaheedu waxay tahay sar walba oo ay xukuumadda iyo dawladdu lahayd waa la dhisi karaa haddii aan annagu u soo jeesanno intaas ka sokow waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada waa wasaarad aad u muhiim ah caruurteenna in wax la baro waa sida keliya aan ula tartami karno dunida inteeda kale adduunyada sida keliya aan ugu soo laaban karno waa inaan waqti iyo xoog gelinaa in caruurteenna wax la baro caruurta wax la baraayana ma aha caruurta xamar joogta keliya wasaaraddu waa inay ogaataa inaanay wasaarad u ahayn dadka xamar jooga laakiin dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u tihiin wasaarad dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u adeegtaan waliba aad si cadaalad ah ugu adeegtaan in deeqaha waxbarasho wasiirku ka hadlay
si daahfurnaana ummadda Soomaaliyeed oo dhan loogu qaybiyo waliba kuwa ugu mudan la siiyo waa talaabo aan xukuumadda ay soo dhaweynayso waa qayb kamida isla xisaabtanka waa qayb kamida soo celinta sidii ummadda Soomaaliyeed ay dawladdeeda ku aamin lahayd ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay iyadu ogaato meel walba ay joogto dawladda la sheegay iyada inay tahay iyadu inay dawladda tahay annagu waxaan nahay adeegayaashii dawladda iyadu inay dawladda iyadu iska leedahay annaguna aan nahay dadka iyaga u adeegaya in wasiiradu ay sidaas u hadlayaan in wasiiradu ay sidaas wax u fahamsan yihiin in wasiiradu ay sidaas wax u maamulayaan waa talaabo cusub oo la qaaday wasiir waa idinkugu hambaleynayaa wasaaradda waxaan idinkugu hambaleynayaa meel wasaarad fiican maadaama aad samaysateen inay shaqadiinu sii badnaan doonto waqtiga aad shaqaysaan uu intii hore ka sii badnaan doono wax soo saarkiinu uu badnaan doono ummadda Soomaaliyeedna ay ku diirsan doonto waxa aad qabataan ugu dambeyntii wasaaraddu waa qayb kamida bulshada Soomaaliyeed sida idinku aad u wada shaqaysaan sida idinku aad ummadda wax u tartaan sida idinku aad isugu dhawaataan sida idinku wada shaqayn caafimaad leh aad u samaysaan ayaa saameynaysa bulshada inteeda kale idinku marka waa inaad bilowdaan dhaqan cusub oo ka duwan dhaqankii hore maadaama hadda aad bilowdeen dhaqanaha inaad si iskaa wax u qabsaa meeshan aad ku dhistaan waxaa laydinka rabaa dhaqankaas wanaagsan inaad gaarsiisaan bulshada iyo dawladda inteeda kale waa idin hambaleynayo waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh يا ويا واي ما adiga joogto gadaal warkaal dheecan soo gal signiyo اسمع قناه
وزير واي مسودك واي صوص كنا هرب صوص كنا سخيبية حتى سخيبية حركة ما ترى عنده هوست لا ماشي ده